wacan oo wanaagsan dhegaystayaal guud ahaan meel walba aad joogtaan oo aad naga dhegaysanaysaan kuna soo dhowaada mar kale iyo tixanaha murtida iyo maahmaahyada. tixanaha murtida iyo maahmaahyada waxaynu ku eegi doonnaa sheeko murtiyeed oo halkudhigeedu ay tahay haween iyo hilibba waa kuwii aan lagaaga horrayn. sheekadaani waxay dhex mari doontaa wiil iyo aabbihii, waana waayihii hore iyo sheeko ka mid ahi sheekooyinka guurka. biri baa waxaa la yidhi wiil ayaa aabbihii ku yidhi, aabbo waxaan doonayaa inaan guursado ila tali. odagii ayaa yidhi waa yahay guurso oo waxaad soo guursataa gabar carmal ah. sidaa darteedii wiilkii wuxuu soo guursaday gabar carmal ah oo qurux badan. markii uu gurigii oo keena ayuu odagii u sheego oo yidhi, aabbe waan soo guursaday, gabadhuna waa carmal. odagii ayaa ku yidhi wiilkii, waxaad yeeshaa xariggan qaado oo ku xir, waxay ku tidhaahdana ii soo sheeg. wiilkii oo yaaban ayaa qaaday xariggii oo sidii loo sheegay ku xiray gabadhii. kadibna gabadhii uu xiray ayaa weyddiisay su'aashaan ah, maxaad xariggan iigu xirtay? sidaani ninkaygii hore ima yeeli jirine. kadibna markii waagu uu baryey ayuu wiilkii jawaabtii u soo celiyey odagii oo u sheegay hadalkii gabadhu ku tidhi. odagii ayaa islamarkiiba ku yidhi wiilkii, fur tani naagtaada ma ahee. wiilkii naagtii wuu furay. odagii ayaa mar labaad wiilkii ku yidhi, waxaad soo guursataa gabar aan hore loo guursan oo kaa da'weyn. wiilkii wuxuu haddana soo guursaday gabar ka da'weyn oo aan hore loo guursan. markii uu gurigii oo keenay ayuu u sheegay odagii inuu keenay gabadhii oo tilmaamay. odagii ayaa yidhi, gartay, qaado xariggaani oo ku xir, waxay ku tidhaahdeen ii soo sheeg. wiilkii ayaa qaaday xariggii oo ku xiray gabadhii. kadibna waxay tidhi, maxaad iigu xirtay xariggan? wiilkii markii uu waagu baryey ayuu u yimid aabbihii una sheegay waxay tidhi gabadhii. odagii ayaa haddana ku yidhi wiilkii, tanna fur naagtaada ma ahee. wiilkii ayaa furay gabadhii labaad. odagii ayaa mar saddexaad ku yidhi wiilkii, waxaad soo guursataa gabar da'deedu yar tahay oo aan lagaaga horrayn adiga oo aad isku eyni tihiin. wiilkii ayaa soo guursaday gabar yar oo hadda guur gaartay. markii uu gurigii oo keenay ayuu aabbihii u sheegay oo yidhi, waan keena aabbe, in kastoo gabadhu ka qurux badnaayeen kuwii hore ee aad igu tidhi fur. odagii markii wiilkii u sheegay inuu gabar yar soo guursaday ayuu sidii oo kale ku yidhi, qaado xariggan oo ku xir, waxay ku tidhaahdeen ii soo sheeg. wiilkii oo weli yaaban ayaa qaaday xariggii oo ku xiray gabadhii. kadibna iyadoo aan wax su'aal ah weyddiinin ayuu lulmooday oo seexday. wiilkii aroor hore ayuu sidii ruux naxsan hurdadii ka soo booday oo xusuustay inay gabadhu xirneed. wuxuu islamarkiiba arkay gabadhii oo hool ka dhex haysa aqalka. markay aragtay inuu soo toosay ayuu ku tidhi, abboowe, xariggii waa kan, wuu iga furte ee hoo igu xir. wiilkii oo la yaaban baarinimada gabadha ayuu u tagay odagii una sheegay waxa dhacay iyo waxay gabadhu tidhi intaba. odagii ayaa ku yidhi wiilkii, waa tan tii aan kula doonayey, waxaana la yidhaahdaa haween iyo hilibba waa kuwii aan lagaaga horrayn ee ogow maandhow. dhegaystayaal, sheekadani waa xilli hore, waxaannu xarriga lagu sheegaa inuu ahaa mid aan si sax ah loo xirin oo ahaa mid sarbeeb ah. sidoo kalena ujeeddada odaga ayaa u muuqata mid tilmaamaysa in guurka gabadha yahay kan ugu fiican guur. maxaa yeelay gabadhu waxay jecel u qaaddaa lana qabsataa nolosha ninka ugu horreeyey ee guursada, halka laga yaabo in haween carmal ah ama laga geeriyooday ayna ninka labaad ka helin jeceylkii iyo dhaqankii ay ka filaysay kala duwanaanta dabeecadda. balse arrinka oo sidaa ah beemisana in garoob la guursadaa mararka qaar habboon tahay. si kastaba ha ahaatee, soomaalidu guurka dadka dhex maraa waxay u qaybisaa 3: daacad guursaday oo ah wiilkiiyo gabadha oo hore u soo guursaday oo isguursada; daacad dareen guursaday oo ah wiilkiiyo gabadha midkood oo hore u soo guursaday oo isguursada; dareen guursaday oo ah wiilkiiyo gabadha oo labaduba hore u soo guursaday oo isguursada. murtidaas oo markeeda u baahan sharaxaad gooni ah. dhegaystayaal, tixanaha murtida iyo maahmaahyadane maanta halkaa inoo joogto. ta intaa ku kulmi doonno qayb kale.